السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرديدا يددك كلا كوحدن باشتنا كينا عشرة عافيماتك waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub iyo lesson cusub. lesson-keeni labaad ayaan maanta dhigan doonaa oo ahaa pneumonia oo markaa af Soomaali ahaan loo yaqaanay oo fooreen. Haddaba markaa intaan lesson-keena labaad aan bilaabin fariin yar baan idin sii gudbinayaa. waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaadhi lahayn 1000 subscribe xagga dadku 100 subscribe si rajaynayaan. Anagu iminkaan soo kacayna markaa 1000 subscribe wax yar baan nooga harsan markaa cid na gaarsiin kartaan waa idinka. بريهنا وحن كدريميا إن تسيب سيارة ضعيفة سارة أو دي أنت أفرتن قفي دعوته يعني حتى ليك نصارين مغالك اللي يقرأي سبسكريب قرأي إنت سامر كأنه نوع ديري قل نوع مركا فرينتنا دي سوى قارسين إذا تكون قبل مركا دان كوكا قارنو حيالا بدن بدن مركا اسبدل بدن بدن أرك دونتان أي كم ديهن مقعا channelka وان كبدل دونو waxyaalo fara badan baad arki doontaan oo lagu soo kordhin doono oo markaa ka turjumaya guusha markaa uu gaaray channelkeenu. أنا وان كاجن pneumonia عد كستابة خطر وجود شرطة وقاعد كرتا. However, the following groups group-yadan soo socda are at high risk highest risk kuwaas khatarta aadka ugu jira. Adultiga dadka qaangaarka ay da'doodu tahay 65 iyo older dadka waaweyn. Childrenka carruurta younger than ka yar age-koodu yahay 2 sano marka carruurta 2 sano jirta ama kuwa ka yar. People with a certain medical condition dadka xaalado marka medical conditions ka haystaan oo sida COVID-19 oo kale qabay xaaladaha qofka xaaladaha malan ama respiratory disease haysteen marka xaaladahan oo ku iman kara iyo people dadka that smoke dadka marka caba sigaarkana way ku iman kartaa. Symptoms of pneumonia duna daba symptoms calaamadaha pneumonia of bacterial pneumonia in kullu wax kamid marka dhacdo bacterial pneumonia waxa common ka ahayd 10kii hore lesson-kii hore ku shaaragteen Streptococcus pneumonia. haddaba qofku wuxuu isku arkayaa bluish color midab muxuu iska arkayaa bluega kuwaas oo libiska iyo fingernailska kuwaas oo cidiyaha iyo bishimaha uu ku arkayo taasoo markaa ka turjumaysa in dhaxagaas tahay oxygen markaa ay ku yar tahay. qofkii markaa confused mental state xaaladiisa maskaxaanina waxa ka galay confused or ama delirium wuxuu noqonayaa qof isku dawaqsan oo delirium buu noqonayaa qof soo jeedo maqan especially khaasan dad waxa ku badan tahay in older people dadka markaa waaweyn. qofkii qufac buu yeelan karaa qufacaas oo that produce green yellow or blood mucus qufacaas ay la socdaan wax cagaaran ama huruuda ama dhiig la socdo waxa ka dhiig leh ama cagaaran ama huruuda ayaa la socda. qofkii xumad buu yeelanayaa qofkii wuxuu yeelanayaa kale heavy sweating did aad u fara badan buu yeelanayaa loss of appetite ama teedkiisa waa qofkii xumaanaya. low energy and extreme tiredness qofkii energy tamartiisa way yaraanaysaa oo hadduu qofkii ama teedkiisa yaraado tamartiina way yaraanaysaa. extreme tiredness qofkii markaa wuxuu dareemayaa daal markaa aad u badan tiredness buu dareemayaa. wuxuu kaloo qofkii yeelanayaa rapid breathing neefsashadiisa degdegaysa rapid pulse aad u degdegaya. shaking chills wuxuu dareemayaa qofkan qandho markaa wuxuu dareemayaa qandho dhaxan si qof ay dhaxanayo soo gariiraya. sharp or stabbing chest pain wuxuu markaa qofkan dareemayaa chest wax ku mudan laabta kaga mudan oo markaa dhiiba taasoo markaa qofkii ku breathing-kiisana noqonaya mid dhiiba iyo coughing-kiisa iyo qufaciisa. shortness of breath qofkii markaa neefsashadiisa waa ku yaraanaysa that gets worse neefsashadii markaa kasoo baxaysay baa ku adkaanaysa with activity markaa qofkan wuxuu dareemayaa worse murug ayuu dareemayaa ama neefsashadii qofsiin wax dhibas oo kale neefsashadii uu dareemayaa markaa activity sameynayo. early symptoms of viral pneumonia calaamadaha daba xilli hore calaamada qofka isku arkay qofkaas oo markaa pneumonia ku sababtay virus uu ku sababay are the same waxay la mid tahay as those of bacterial pneumonia kuwii bacteria sababi jirtay pneumonia bacteria keeni jirtay which may be followed by waxaana kamid ah headache madax xanuun qofkii madax xanuun buu dareemayaa wuxuu dareemayaa qofkii inay neefsashadiisa yar tahay ayuu dareemayaa
wuxuuna dareemayaa qofkii inuu muscle pain hayo oo markaa muruqiisa xanuunayaan wuxuuna dareemayaa qofkii inuu yahay qof weakness oo markaa qof jilicsan oo markaa daciifa wuxuu dareemayaa markaa qofkii worsening of the cough markaa qufac markaa uga soo baxaya si markaa aan habboonayn oo markaa aada u dhiban mycoplasma pneumonia noocan haddaba saddexaad ee markaa sababayna isaga haddaba calaamadiisu has the same what different symptoms calaamadiisu haddaba waxay leeyihiin calaamado markaa kala duwan sida ay ka mid tahay safiir kaf qofkiin qufac daran yeesho daadmi brutus kaasoo markaa markuu qufacaan uu soo saarayo muka soo saarayo xaaka soo saarayo diagnosis list haddaba waxyaalaha lagu diagnosis garan karo maxaa ka mid ah chest x-ray inaan ku ogaano blood test inaan ku ogaano iyo sputum culture inaan ku ogaano iyo inaan pleural fluid culture ku ogaano afartaasaa ugu muhiimsan oo main ah haddaba haddaan ka ugu horeeya haddaba soo qaadano oo ah chest x-ray this testigani tagiis waxaa la qaadaa picture of internal tissue waxaa laga qaadaa nudayaasha hoose iyo lafaha iyo organiska kuwaasoo ay ku dhex jiraan markaa kuludhu ka mid yahay dalanka sanbabadiina ka mid yihiin blood testiga haddaba isagana this testiga maybe use wax loo isticmaala tusin lagu arko whether infection jiro is present infection xaadir yahay meesha jooga in lagu arko an infection haddii infection has spread of to the blood stream iyo in la eego in infection bal ku faafay raacay blood streamkii oo markaa blood culture qofka loo diro arterial blood gas kuna testing waa testing lagu jeegareynayo the amount of oxygen in your blood stream amountiga oxygen-ta ee markaa jirka dhiigaaga markaa ku jirta waa ayaa lagu testi garayaa sputum culture sputum culture-ku waa in qofkii sputumkiisa ama xaakadiisa culture loo qaado markaa lasoo eego distance dhan tijaabadan dhan waxaa lagu tijaabiyaa the material that's fed up from the lungs marka qof meel ku qufaca qof from the lungs and into the mouth it's often used to lagu arko if there is an infection of the lung sputum culture-ka faa'iidada ugu muhiimsan ee loo qaadaa waxa weeye in lagu ogaado ama lagu arko in haddii uu ka jiro infection ka jiro markaas sababadeena pleural fluid culture in la qaado oo pleural fluidkii u dhaxeeyay chestiga iyo lungaska u kala dhaxeeyay in la qaado in testigani sample of fluid waxa laga qaadayaa sample baa laga qaadayaa fluid sample is taken waxa laga qaadayaa from the pleural space kira fluidku u dhaxeeyay baa markaa la qaadaya this space kaasi between wuxuu u dhaxeeyaa the lungaska iyo wuxuu u dhaxeeyaa chest wall-ka xabadka darbiga xabadka iyo lungaska ayuu u dhaxeeyaa markaa isu xoqin ayaa markaa pleural fluidkaasi uu markaa ugu jiraa long haddaba dheer than thin needle markaa irbad aada u dheer isa boot ayaa markaa through the skin markaa waxaa la dhex marinaya skinkii between the ribs feedhaha and into the pleural space-kii ilaa waxa la geenayaa markaa pleural space-kii fluid is a bullet into syringe attached markaa fluidkii waxaa lagu soo jeediyaa fluidkii markaa waxaa lagu soo jeediyaa syringekii kaasoo markaa it's sent to the lab taasoo markaa loo dirayo labka where tester halkaasoo markaa testerkaasi to find out lagu ogaanayo which bacteriada is a causing sababtay the pneumonia sababtay ma viral pneumonia ama bacterial pneumonia ama nafsi nooca bacteria sababtay ma streptococcus pneumonia tiyacanka ayd ma kuwii kale oo lagu ogaanay risk factors ka dadka khatarta ugu jira pneumonia kana factor pneumonia cid kasta way sababtaa ama qofreenku cid kasta uu saameeya balse laakiin the 2H group laba H group oo marka laga soo reebo ayaa highest risk khatarta ugu badan ugu jira children caruurta da'du tahay 2 sano ama wixii ka yar iyo dadka marka age ah oo marka 65 ama wixii ka weyn ah other risk kala jira kuwaas waxa kamid ah being hospitalized qofkii marka hospitaalka la dhigo tusaale kale inuu marka khatar ugu jiro inuu qaado pneumonia inuu qaado chronic disease qofkan cudur waa la soo jiitamay oo marka waxa hayay qofkan xanuuno marka chronic oo marka sababada ku dhacay smoking kii baa kamid ah smoking oo sigaar cabidiya waxaana kamid ah tusaale kale weekend qofkii inuu daciifo dadka markaas respiratory immune system-kooda marka la weeqay maxaa hadaba complications cawaaqib xumo even xitaa with the treatment xitaa hadii la daaweeyo some people dadka qaar baa dadka dhan ma dadka qaar baa with pneumonia ama fareenka qabaayay especially khaasatan those in high risk hatta hadii xitaa la daaweeyo qaar baa xitaa pneumonia-dii ku qabay hadii xitaa la daaweeyo qaar baa cawaaqib xumada marka yeelan kara khaasatan dadka those in high risk ugu jira khatarta ugu high risk group ku jira
group marka khatarta high risk ku ahaa khatarta ugu jiray cudurkan marka kuwaas marka waxay yeelan karaan xitaa hadii la dooyo complication way yeelan karaan complicationadana maxaa kamid ah bacteria and the blood stream dhiiga raacdo marka bacteria oo bacteremia la yiraahdo bacteremia la yiraahdo bacteriadan hadaba daadintan waxay galaysaa the blood streamki qulqulkii dhiiga galaysaa from your lungs ee sababadaada can spread waxayna ku faafaysaa the infection kaas wuxuu ku faafayaa to the organadii potential kaasoo mustaqbalkana causing sababaya inay dhacdo organ failure la soco lesson-ka xiga fadlan subscribe saar daawade fariinteeda oo idinku soo celcelinaya kunkii wax yar baa nooga dhiman ina gaarsiiya waxyaalo fara badan baan idin hubaa marka aan horumar sameyn doono insha Allah wanaad ku maatintii sida quruxda badan aad mar walba ula socotaan waxaan jeclaan lahaa inaad mar walba muuqaalka daawataan aad like ta saartaan subscribe-tana aad markaa saartaan oo meesha casnaad naga cadeysaan inta kaliya waxaan ugu filan tahay dhiirigelin bay noogu filan tahay